بسم الله الرحمن الرحيم. جغرافيا لو كنا سكرتم كم تمرنا إن شاء الله. وحي شرحها بان وشرحنا قبل إنجليش كعربي لوضع سؤال شكوى حلو يريك ويا وصوص كيبا انفرمنت بروبلم سومالي كتير كمية وأبارها الجفاف أما دروتس طلبات atomic power كوحلقة كيانا يورانيوم mineral كو يقان يورانيوم سؤال حigta mineralka waxaa la yiri mineralka markay deep of the ground meel yani ground dhulka macnaha deep ana aad ay ugu hoos jiro dhexdiisa ku hoos jirto yani waxaa la isticmaalaa mininka nooca la isticmaalaa underground baa la isticmaalaa waa marka meesha meel fog ay jirto waayo dhulka hoostiisa which of the following ama tacdiin taxta al-ardi baa la yidhahdaa xagga carabiga which of the following is the largest consequence of forest destruction أي مما يلي تترتب غالبا من تدمير الغابات بربريسد كيما بربرية محاكا إيمان كرا إن الوايو عدم وجود موطن الحيوانات من الحيوانات كأي يعني خوي النقطة ولا كف animal habitat تشنال the following regions has an borders with يعني قولنا صوصة كذا حدود لإثيوبيا كينيا وقدر which type of trees is shown below ما هي أنواع أشجار التالي maxay dhirta noocyaan soo socota waxa weeye coniferous tree dhirta yani hooldaya iska cagaaran mar walba su-aasha xigta miqyaasu alkhariida مثل 1 to 200,000 مثال على النقص وحو يعني مثال يهي ratio scale baa la yiraahdaa ratio scale su-aasha xigta diagramkan wuxuu ku tusayaa ama sawirkan soo socda rasmi ah soo socda wuxuu ku tusayaa drag different depth transport through all the year يعني dhirta meesha oo yani which will have water transport qeyba keebaa all the year waa qeybta c way su-aasha xigta c ama jim سؤال حيث توجد the following is not means of communication أي مما يأتي لاسم وسيلة اتصال waxyaabaa lagu xiro rakibaan kamid ahayn table miiska laguma wada xiro qof walba sagaranayaa tanna waxaa lagu yiri fishiska quudiya ama kalluunka quudiya organismka yarka ama walxaha yarka ku jira badda maxaa loo yaqaanaa xawaaliq baa loo yaqaanaa waa plankton qaybtan waa isku aadin weye waxaa isku aadinaysaa qaybta ba iyo alif ama qaybta a b erayga iyo qeexitaankiisa weye marka waa isku aadintan waa iska fudaa ka gudbinaa qaybtan waxaa lagu yiri juqraafi maxaa la yidhaahdaa qeex juqraafi maxaa la yidhahdaa physical study of earth waa physical study of earth barashada dhulka weye and human activities qaybta carabiga haddaan fiirinana waxaa weeye جغرافيا دراسة علمية ودراسة علمية للأرض الأولى أنت سوق تشوف كرتها كموضوع الجنسي بشري إنها على أنت يرتبط كل كرتها الأرض صقيح تنقص وأنت سؤال شربات صدق برانجس قيبوضة ولا صدق نوع ولا ويوم جغرافي فيزياء جغرافي environmental جغرافي سؤال قيبت عربي أيضا صدق استقبال كان هو بشري طبيعي اقتصادي define weather قيح عرف الضغط عمل قيح عمل واحد short time of يعني condition of atmosphere عمل حل قابن عمل لا ذهبي atmosphere كلها قيبت عربينا وحالة الجو لدرجة أن الجو حار وبارد وممتلئ وحالة الجو يقول مركز كجرة ما ممكن هي مقوية أنت بارد بكل شكرتها سؤال شركته waxaa la weydiiyey استخدم البيانات التسبيعية waxyaabahan baa isticmaal بيانات كان باستعمال kartaa الوارد أدنى في المحيطات في الصومال لإجابة حاجة waxaa lagu siiyey weekly data lagu siiyey marka waxaa ka jawaabaysaa su'aalaha soo socda su'aalahaas maxay yihiin waxaa xisaabisaa su'aasha koowaad درجة الحرارة الشهرية أما monthly mean temperature sanadka temperature ku celceliska intuu yahay weye waxaa samaynaysaa waxa isku geynaysaa yani xisaabaadkan dhan baa isku geynaysaa bish intii tahaa u qaybinaysaa waxa la yiraahdo 720 marka la sugayo 720 baa soo baxaysa
waxaa u geynaysaa bishu intay tahay oo laba soddon beri qaybta su-aashan waxa lagu yiri which day maalinteebaa leh has lowest average temperature يعني أي يوم لديه أدنى متوسط حرارة أما كويلك وير كيله وفيري كان كفير ساعة ثلاثة وير أفرت النتيجة وزن طبيعتهم هذا وير تنفيكتا which day have the الثلاثاء بعدها ساعة أما توس اللي بعدها ساعة إنجليزي عربي which they have similar average labada maalmood baa averagekooda uu siman yahay waa Saturday iyo qaybta carabiga hortaan fiirino waa kana waa sax ثلاثة koob iyo toban buu leeyahay maxaa samaynaysaa maxaa ku helaysaa qaacidadii baa ku xisaabinaysaa mid walba waxaa la yidhaahdo averageka maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa maximumka laga jaray minimumka laba loo qaybiyey marka talaadada kusoo baxsa labada isleegna 30 bay noqonayaan waa Sabtida iyo Isniinta marka waa gudub qaybtan kale waxaa lagu yiri idris ashkaal tare sawiradan fiir baa laga ka jawaab su'aasha koowaad which is the most expensive keeba u qaalisan waxyaabo diyaaradda u qaalisan waa r أي من وسائل النقل هي سكك الحديدية كوا ريلوي كيبا ريلوي ترانسبورت كوا يعني و تي نمبر تي سوري ها بي oo tareenka ah railway waa waxyaabo rug hoos samaro ama sakakal xadiidiya su'aasha xigta ay min wasaa'il naql kuwa bariga loo isticmaalo ama wax loo yaqaan road transport waa SCQ oo gaariyaasha bajaajka waxa uu jira gaari caadi waxyaabo soo socda keeba water transport ama biyaha naql maa'i la yiraahdo keeba awati qaybtaas waa saas bugan kala oo gudubno communication qeex ama ittisaalaad qeex waa exchange of message between people dadka dhexdooda inay message ama fariimo isku diraan arabiga الاتصال هي تبادل الرسائل بين الناس عربي وساسا ku leedahay su'aashan xigta waxa lagu yiri waxa lagu siiyay halkan wasaa'il naqli baa lagu siiyay waa ku buuxinaysaa inta u qaybsama saddex u qaybsama land transport air transport iyo water transport ama carabiga نقل الماء الجوي بري qaybtan waxa lagu yiri laamigu saddex bay u sii qaybsamaan saddexda baa kala sheegaysaa road iyo railway iyo pipeline waterkana masii qaybsanta waterka labada qaybsata inland iyo ocean عربي وأصل أنت بعرب بدرس بخطوات داخلي خطوات الأنانيب سك حديدية أو ترينادية الطريق خطوات عادية من سؤال كان أفيرنا describe human بوتريج أما سف الحمولة البشرية وضدك وحياة قادم وين حاول scaring goods by people ضدك إنه قادم ألعاب وين by their backs دبرك قادم shoulders كربها and hands كعمود قادم عربي أنا وأنتي وحمول البشرية وحمل بضاعة من غير ضدك إنه ألعاب قادم على ظهورهم ورؤوسهم وأكتافهم وأيديهم حياة ماشي ربع قادم تحكي حلو يري وعشان هذا مثال لو تصار كان على نقل الحيوانات أما give two examples animal transport لو تصار كان كمل جيلا كمذا دونكي دايرة كمذا الحمار يو الجمل هذه كرتها وكان الحمير البقال الخيل فردا حتى وكشران فاشنا حكتا الصناعة المنزلية قيح عمل cottage industry industry guryaha lagu samaysto waa small industry that small people same family run to create product waa alaabaha oo same family dadka kasoo jeeda alaabaha guryahooda ku samaystaan carabina fiiri صناعة المنزلية صناعة صغيرة وصناعة ير أما ورشد ير يديروا عضو من نفس العائلة dad isku guriya ay sameeyaan qaybtan maxaa isku aadinaysaa level of production isku aadinaysaa halkan waxa lagu yiri sorry waxaa isku aadinaysaa waa tusaale waxa uu keenaysaa extracting ama qaybta istikhraaj soo saarida mucaalajada iyo khidmada saddexaas u qaybsamaan moogtahay productionku saddexda hab mara industries ka sheegaysaa الصناعات البدائية وبرايمري الصناعة الثانوية وسكندري الصناعة الثلاثية وبرد حاجة شرقي هذا وحلير هذا
tertiary waa la yiraahdaa waa qayb saddexaad su-aasha xigta waxaa la yinaaqash bijaas talaata min warshadaha Soomaaliya saddex waxyaalood oo ku faa'iido ay leeyihiin maxaa kamid ah shaqo abuuran creates employment opportunity bay keenaan waxay kaloo sameeyaan lambar labo service waxay u shaqeeyaan as source of income soo saaraan encourage waxay dhiirigeliyaan development infrastructure inay warshaduhu horumaraan carabigana sidoo kale jawaabtu waa taada tanmiyatu sanaacaad ilaa tadwiir tijaarati maca albuldaan wadamada inay tijaaradu ay horumarto تطوير الصناعات يولد wuxuu keenaa furas camal sukaan fursad ku shaqeystaan saddex sanaacad aad ilaa numuud magaalooyinka inay horumaraan ka keenaan waxaa kaloo kamid ah shan oo ku sidoo karta lix toddoba sideed toban koyto waxaan dhan intaa rida ka qoranaysaa waxaas dhan waa isla intii su-aashaas jawaabteedii wey dhowr toban qodob baa laga qoran su-aasha xigtaan ka jawaabana marka what is climate change maxaa weeye cimiladu in isbedesho taqayur manaakh waa is the change usual weather exist in place weatherka meel ka jira ama cimilada meel ka jirta inay isbedesho weeye ama isbedel ku yimaado su-aashaas waa su-aasha sideedaad kan fiiri marka su-aasha sideedaad sorry كان سؤال لحد عنده وتغير المناخ وحاول هو التغير في النقش المعتاد الموجود في مكان ما هو أصل أنت ولما ما لا إلا أنا أثبت الشوي نمبر با أما نمبر بي صدق النتيجة كصوب هذا الشيء سا كلام تشينج وحكى صوب هذا كريس ووتر سبلاي وحيانا بيها reduce وحيانا agriculture وبيارها health impact وحيكون ليهين insects مالوينك وحيكون ليهين سامين حافظات عربي في مرك حاكم زيادة في أزمات الجو والمياه جوي بيها نباتين ما كرا حكى له مزيد من انتشارات الآفات يوم سائل ما جروين ما كرا فقدان تنوع البيولوجي سده حاسة قرن كرتا وحنا شرحات ضمن لقسي بحي وهوا أو سي الأذن نسوا خير في الأنت سؤال شحكتا وسؤال تضوال عندها define مين هو محي التعدين حلو يغانا معنى قلس و inorganic substance which are sorry meeshaan mining ma qeexina waxaa qeexay mineral way qeexitaanka meesha ku qoray miningka waxa weeye mining ama tacdiin maxaa weeye waa mining waa process extracting variable mineral ama macdan processka ama qaabka looga soo saaro dhulka carabigana fiiri المعدن وهي مركب كيماوي يحدث في قشر الأرض ويشكل أساس الصخور معدن ومركب كيميكا كسميستان يحدث في قشر الأرض يعني كجرة يعني ويشكل أساس الصخور ومذبية صخورة أما الصلاحية ريحان توين الحباس سأشرك تنوي معنا Somalia had not exploited mineral fully معدن قدس في عكمة جرته waxaa sharaxda afar factor ama sababood oo keenay sababay waxyaabahaas carabigan waa isla intiisa sunta lagu weydiiyey waxaa kamid ah lack of capital ama kharash ma jiro investment and market iyo suuq political problems waa problemo oo political siyaasadeed baa ka jira lack of power supply يعني باور ama koronto supply ma jirto iyo energy poor transportation يعني isgaarsiintii waa xun lack of adequate way meesha skill personal dad iyo shaqaale yani xirfad baan joogin shan waxa uga dhigay 2017 kii baa su'aashan waxa ku jirtay shan ka xaba ka sheeg marka ingiriiska carabigana waa kana su'aasha toddobaad وفرة المعدن يعتمد التعدين وفرة المعدن كو قيمة المعادن
qiimaha macdanta يعني وقالي طريقة التعدين قابل لو صار لها أيضا حل استثمار رأس المال يعني خرج الآن باجرته موثوقية السوق سوق الآن ماركة الآن سوق الآن باجرته waxyaabahaasa ka mid a lix xabaa meesha lagu qoray marka technologygina xataa male technology mutaqadima technology horumarsan male intaan carabiga intaan yartaa intaa horaa kusoo kooban kartaa electric state baa lagu yirtax waxba sharax adag kama sii bixinaysa qaybta xigta fiir marka su-aalaha muhiimka ah ka mid taha waxaa lagu siiyey meeshaan map scale miqyaas البحيرة ama maapka scalekiisa ama cabirkiisa waxaa lagu siiyey yani 2.4 kow su-aashkooda maxaa lagu yiri waxaa u bedeshaa statement caadi statement maxaa samaynaysaa keliya meesha oo labada dhibcooda tu ka dhigaysaa bis labada dhibcooda meesha lagu siiyo tu ka dhigaysaa wankii hore wankan qora centimeter buu taagan yahay tu dhe markaas tiradan 400,000 waa centimeter weeye kilometer u bedel kilometer loo bedelo waa 4 kilometer intaas hawshadu waa intaas carabina waa isla intii intaasaa ku qoraysaa meesha oo tuudala waxa dhahaysaa carabiga waxaa leedahay waxaa leedahay haatana waxaa leedahay 400,000 سنتيمتر يمثل وحلم يهي 1 سنتيمتر على الخريطة يمثل وحلم يهي 400,000 سنتيمتر على الأرض وأنت عارف waxa ka dhigaysaa tiro caadi ka dhigaysaa caadi ka dhigaysaa su'aashan fiir marka xigta su'aashan waxa lagu yiri waxaa xisaabsan ground area si loo xisaabiyaa waxa loo xisaab hadda fiir meesha warqadan si lagu siiyey waa irregular shape يعني aan toos ahayn irregular shape hadda haysta maxaa samaynaysaa halkan waxaa lagu siiyey square wixii x waa square caadi square toos weeye wixii mataqaanaa dhibcaha lagu siiyeyna square kala barkiis weeye ama square 3/4 يعني square waxbaa ka dhiman ilaa waxaa dul maray xariijinta dul martay square kuma dhamaystirna marka maxaa samaynaysaa 5 step baa maraysaa 5 step koowaad maxaa weeye waxaa ka dhigaysaa statement caadi ka dhigaysaa 1 centimeter to labada dhibcood soo qaado wixii centimeterkan dambe waxaa u bedelaysaa kilometer u bedelaysaa 4 kilometer intaa markaa samayso waa step koowaad step labaad maxaa samaynaysaa kow area of square baa raadinaysaa inta square-rada waa intee waa tirinaysaa wixii x tiri waa 16 xabo 16ka square maxaa samaynaysaa area intee way area square maxaa lagu heli jiray waa waxa la yiraahdo sorry 4 kilometer baa waxa raadinaysaa area of square uu leeyahay 4 ku dhufo way waa 16 lambar 3 maxaa samaynaysaa square-rada sheegaysaa wixii square full square oo halkaan qoranaysaa waa intee xabo 1 2 3 4 waa tirinaysaa 16 xabo way 16ka xabo waxa ku dhufanaysaa area of square-ka haysto 16 ahaad waa 2 ku teel half square-kana waa tirinaysaa waa 20 xabo 20 ka wata 2 u qaybinaysaa maadaama half ay yihiin square-ku waa 20 soo maaha 20 ka 2 u qayb waa 10 baa soo baxay 10 waxa ku dhufataa area-da square-ka ay haysto 16 ahayd 16 marka 10 lagu dhufto waa 160 waxa isku geysaa marka full square intaas ku soo baxday half square ku soo baxday 160 oge 460 kilometer square hay laawin kilometer square qaybta xigta su'aasha xigta carabigana waa isla intaas aad u xisaabinaysaa su'aashan waxaa lagu yiri saddexdaas sawir waana kala garan kartaa settlementiga marka la joogo su'aalaha la isweydiiyo waxay saddexda nooc settlementiga qeexitaankiisa waxaa la yiraahdaa waxyaabaha saameeya settlementiga iyo saddexda nooc oo kala baxo mid walba sawir hadii lagu siiyo waana kala garan kartaa inta laga weydiinayaa saddexda nooc oo sawir kala sheeg muxuu taagan yahay waa kala firfirqsan yahay waa dispersed settlement
وسبب أنت قاعدين سبار لفتر كذا لين ياري نوكلية تبع يعني سبيس ومتك أو قليا كلا فكريين نحلي نوكلية تبع هذا وكان قليا كل دويه نمبر سي نمبر بينا واللين بتحيي مكلين يربع الله عربي محلو كلها عمران المشتت وكالة تكسين هاي عمران خضي ويعني لين بسارية خض أما لين بسارية عمران نووي أما مجمع ومتكسكر دو su-aashan waxa lagu weydiiyey 3 sababood oo waxaa raadinaysaa saameeya settlementiga maxaa saameeya biyaha saameeya carrada saameysa meesha ay yani settlementiga laga dhisayo baa saameeya waxyaabahaasa kamid ah mid walba qeexitaan yaraa raacanaysaa carabigana waa isleyntii qaybta carabiga inta ku dhigata munaaqul munaasab waa meel ku habboon iqaadatul mawaatiya waa lambar 2 lambar 3 maxaa lagu yiri aturba khasba waa yani waa carro yani ku habboon اتصالات وترانسبورتيشن كما حرادي communication aan ka wadaa موارد meelaha yani biyihii waxyaabahaas wey qaybta xigta marka su-aasha xigta aan gudbanaa halkan waxaa lagu weydiiyey xisaab wey su-aashan immigration rate iyo immigration dadka waddanka soo galay immigrants dadka waddanka ka baxay wey total population waa yani total population waa suuqyada dadka meesha ku degan marka waxaa lagu yidhi immigration rate net immigration rate ka raadinaysaa maxaa ku yeelaysaa immigrantiska dadka waddanka ka baxa soo galay oo waxaa ka jira dadka waddanka ka baxay oo immigrants waxaa u qaybinaysaa population kun baa kusii dhufanaysaa 500 laga jaray 200 u qaybi 80,000 waxaa ku dhufataa 3.75 kusoo baxaya معدل الهجرة الإجمالي يعني gross migration rate كان محاوي هذيا قد كواتن كبحي سوق لي عند حياة أو لوجي قد كواتن كبحي أو لوقي population كروف تكون محب كل دويهين كوان ولا كل شيء immigrants كلا شيء بسوق كل دويهين شاش حكته ارسم أدرس بعناية الصورة صور كان بافيرنا صور كان وانوع مرك فوتوغرافية ما كلا جو وجراوند جنرال فيو عربي أنا وحلو يجري هذا وصورة منظر عام للأرض وصور قدوة ولا هذا اللوك شو عشان الله حلو يدي لبعض أما بيدي ده وحددها يعني لaba waxyaabood activity ama economic activity ama iqtisaad الرئيسي oo ka dhacaya meeshaas maxaa ka mid ah real livestock xoolo dhaqasho iyo farming beerasho waxaa ka dhici kara waxaa kaloo ka dhici kara carabiga haddaan fiirino alxayaat albariya wasiyaaxiya nolol yani beriga ka jirta iyo badda nolol ka jirta su-aashan xigta waxaa sheegtaa 4 waxyaabood factors ama cawaamil oo horumarka economic activity meeshaas yani waxaa la yiraahdo yani ka shaqeyn karta ama horumarin karta economic activity waxaa ka mid ah natural resources inay leedahay farming beer inay leedahay export livestock xoola wax dhoofid export inay leedahay mine naga qoys inay leedahay waxyaabahaas ka mid ah halkan waxaa lagu weydiiyey su-aashan sorry carabiga aan fiiriyo alqaabaad baa ka mid ah waxyaabaha sababaha inay leedahay meeshu waxaa la yidhaha qaabaadku waxaa la yidhahdaa meelahan dhirta badan wey ama kaymaha loo yaqaan xadaa'iq beero inay leedahay buxayraat anhaar waa seas and oceans inay leedahay 4taasaa ka mid ah waxaan waa qarabigan badan waxaa laga bixiyay yani uu sii sharaxay laakiinse adigu state baa lagu yiri tax baa lagu yiri sheeg baa lagu yiri su-aasha xigta qaybta Soomaaliya waxaa lagu weydiiyey qaybta Soomaaliya economic activity likely to be place meesha uu ka dhaco economic activity ugu badan Soomaaliya waa qaybta southka ama junubka loo yaqaano south part qaybta koonfurta su-aashan waxaa lagu yiri waxaa اشرح 3 أهمية أي ليه اقتصاد الصومالي explanatory importance وشيء activity economic Somali واللي حكم إذا خصوص صار employment
improve wuxuu horumariyaa standard of life dhaqaalaha standardkiisa heerkiisa. Trade wuxuu hogaamiyaa development of communication and transportation. Development wuxuu horumariyaa urbanization way meeshaas sida way meesha kasta. su-aashan carabigi waa tanaa marka waxaa ka mid ah iyada laftirkeeda intaas hadda aan sheegnay carabi waa u bedelan kartaa ama masdarul camal waa shaqo baa laga helaa masdarul dakhli inuu soo galo الأدوية التقليدية داوين بالغيها الأدوية التقليدية وحاول داوينك أو استعمالات أو تقليد دخل عنها هستان السياحة عند الحزب هذا سؤال اللي بعد نقول ابنه وحلو يقن انفورمنت هسال أما خطر تبرت إلى بيئة كنت ما محاولة فما هذا حاولي هو إفنت وعلى عضو environment that disrupt لا توجد natural and normal state of ecosystem state كعادية أما حالة وكسبها ecosystem عربي نواتنا هو حدث في البيئة يؤدي إلى حدوث اضطراب في الحالة الطبيعية للنظام الإيكولوجي وأنت عربية هل كان كافي وحلو يري إدارة البيئة حفاظ على البيئة محيك كردويه وحسب الكتابة اللي environmental management environmental conservation environmental management مدول بواقع حسابي صديق environmental management هو process كيوس اللي يصحي translation اللي يفعل environment by people تكون يستعملان environmental conservation محاوية protection preservation management موجودة environment and ecological ecosystems that inhabit them إدارة البيئية محاوية وإدارة البيئية وهي عملية وبرنامج لاستخدام وحساد معقول وتطوير والسيطرة والاستفادة فعالية من البيئة. أما الإدارة البيئية وحلها عملية وبرنامج استخدام من البيئة من قبل البشر. أنت سبحان الله ديكتا الحفاظ على البيئة أنا محاوية environmental conservation والحفاظ على الرعاية على يراعي الإلى جميع المواد الطبيعية أما وحيابها يعني طبيعية أو ديان كل هي أنت سوسو كرتا سؤال شو حلو يري كيف فوريس أفر صواب ضوء شيء بس environment should be managed and conserved صواب ديان كلام معمول والله يعني محيط أفر صواب شيء إعداد 4 أصفار أفر صواب الشكل ماذا ينبغي وحبون إدارة البيئة المعمولة لإدارة ديجان protection ecosystem وهو إلى ecosystem protect human life تكو يعني life كود إلى وحيو في عين trees درتا which home of some species حيوانات غير كنا protect وهو إلى أو consumer product أو أرتي عربينا وكان لتحديد آثار عبر الحد وحوي حماية الإفراط تحديد آثار التوزيع غير المتكافئ للحفاظ على مراقبة البيئات الحيوية الخضرات لضمان استدامة أفرطة صح أفرطة سؤال شدح هذا موجود منه قيبتان وحير حالي هذا سؤالها قيبتان waxaa ka shaqeynaysaa kaliya 3 su'aalood baa ka shaqeynaysaa 3 su'aalood A B C baa ka shaqeynaysaa inta kale waa iska deynaysaa waa saddex kugu fudud marka raadsanaysaa marka su'aashan oo imaano saddexaad waxaa kala sheegaysaa maxay kala duwan yihiin industrialization maxaa weeye waa economic activity waa involve production of food and service industry or process convert raw material لو بدأ fish product أرينا كنا الصناعة هي المكان الذي يتم فيه تحويل المواد الخام مثل الخشب أو المعادن أو الدين إلى منتجات وقابك لو صار لو ريتشي مواد خام سida qoryihi macadintii إلى منتجات حيوى عادية ومنتجات سيرفيس تصنيع عملية تطوير وعملية شغلة تطوير أشكال مختلفة من الصناعة من ضمنها التصنيع تذكر دويه
su-aashan waxaa lagu yiri 3 waxyaabood waxaa sheegtaa physical يعني ama dabiici 3 waxyaabo dabiici 3 waxyaabood oo human factors ku saameeya locationka meesha industry ku yaala physical waxaa kamid ah relief ka kamid ah meesha ku taalo relief highway meesha awda road ka kamid ah climate ka kamid ah human waxaa kamid ah power supply iyo transportation capitalki man power ka taa waa kamid ah عربيا فيري الصناعات وكان 3 طبيعي وحوي وما مناخ موقع ماشي كتالو مناخ أما جوية بيها 3 بشري محاوي عيد العامل ذلك شغيانية تسويق سوق بين تجي نغل الهرتان ترانسبورتيشن وحوي ومان باور يو حالي هذا ماركت يو ترانسبورتيشن سؤالها أفراد waxaana waa iska fuudiyey manufacturing waxa sheegaysaa 3 faa'iido ay leeyihiin manufacturing industries 3 qoranaysaa qaybtan waxa carabigana waa tanaa تطوير صناعة الخدمات يجعل من الممكن نقل المواد الخام للمصانع وتزويع السلع وصناعتها أيضا إلى أخرى su-aasha lambarkeeda waa lambarka 3aad su-aashana waxaa lagu weydiiyey waxaa lagu yiri intensive farm iyo extensive farm 2016 waa kusoo aragteen waa kala saaraysaa wax kala duwan yihiin ba sheegaysaa carabigana waa kana waa islintii wey waxay kala duwan yihiin ba sheegaysaa 3 xabaad ba ka sheegaysaa ugu yaraan number C ama jim naaqish ziraaca raawiya pastoral farming baa sheegaysaa maxaa weeye waa rear animals waa xoolo dhaqatid for their meat milk etc from which human can get income ay dhaqaale ka heli karaan armisho الرعي ممارسة الاحتفاظ بالحيوانات انت سوف تجنس المعتمدة على المرحة انت سوف تجوج وحاولنا نحسك غرن halkan waxaa kala saaraysaa beef farming waxa la yiraahdaa waa xayawaanka oo hilibka loo haysto dairy farming waxa weeye waa xayawaanaadka caanaha loo haysto aragina waa kala زراعة ألبان زراعة اللحوم اللي يرهذا زراعة ألبان حاول تربية الحيوانات وخاصة الماشية لغرض الحصول على الحليب هندس زراعة اللحوم محاوية وعملية الحفاظ الإرادي على الحيوانات وخاصة الماشية لإنتاج لهم سهل بويش وبالله التوفيق وأنتس